waxaan ka tirsanaan jiray raggii usoo shaqeeyay Somali Airlines injineer sarsare ku jiray waliba muddo 5 sano ayaan u shaqeeyay waagii dowladdan ahayn ragga khaaska oo la xulo markii madaxweynaha u baxaya ama raaca ka tirsanaan jiray saad la socotaan Soomaaliya hawadeedii muddo 17 sanadood hadda 18 marka lagu daro waxaa lagu wareejiyay dowladdan Kenya oo 18 years guranaysay dhaqaalaha Soomaaliya waxaan ka mid ahaa guddi la doortay 3 sano yaan la shaqeeyay civil aviation-ka oo waxaa la abuuray company la Kakas waxa ka taagan tahay Civil Aviation Caretaker Authority for Somalia hase yeeshee cirkeena Soomaaliya bil walba waxaa marta ugu yaraan 3,000 oo diyaaradood oo tan ugu yar laga qaado $275 average sanadkii marka la xisaabay waa between 5.7 to $8 million waa lacag aan yareen 17 sano markii aniga hadda sano ka maqanayo anoo volunteer ku shaqeynaya dowladii wasiirka la magacaabay ruqsay marka nin lacag aan ku shaqeynaa ruqsay wali ma aragtay aniga oo horeeyo maleynaya oo ku dhamaaday timekeygi lacagteedii dhaqaalay shir Nairobi ka qayb galay anoo shaqeynaya fasaxadeedii Montreal tagay inta u dagaalamay inaan soo celino cirkeennii hase ahaatee dowladii hadda dhalatay halka sano jirta wasiirkii lagu magacaabay cilmooge dad aniga aan ku jiro iyo shirkadii yani barnaamijkii socday oo baabiyi anagoo meel fiican noo marayso in cirkeennii si sharaf lagu soo wareejiyo si qasab lagu doontay qasab lagu soo wareejiyay waa loo ballan qaaday hadda waxaan inana ma laha Soomaaliya berigii dowladda jirtay waxay imaan jirtay 3 diyaarad 4 diyaarad maalinkii hadda an average a day waxaa timaada ilaa 20 ilaa 25 diyaaradood oo cirkeena wali lacag laga qaado marka waxaan meesha u soo istaagay taageerada Dr. Cabdiwali inaan u sheegno annaga wali waan jecelnahay inaan wadan ku soo noqono ilaa haddana airline-ka waan u shaqeeyaa oo muddo waxaan ka shaqeynay 28 sano in yar aan leeyahay maartay xogaa wadanka waa joogay marka inaan tala siiyo iyo wasaaradaha u magacaabi doono inaan iska magacaabin wasiir hebel aan la dhihin reer hebel buu ka socdaa bal meesha lagu geeyo qabiil loo geeyo nin shaqadii wadi kara ujeedadana waxay tahay wadankan aan joogno wuxuu leeyahay manager supervisor iyo shaqaale Cabdiwali markaan fiirino position ku joogo waa manager weyn wasiiradana waa supervisor noqonayaan supervisoradii waa inay shaqaale leeyihiin haddii wasiiradii wadanka hadda halka sano joogay ina shaqaba abuuray aniga ma arko in ama ayaga lagu soo celiyo ama ka dambe imaan doona saas camal ugu shaqeeyo marka saacadii waqti yar waa la qabtay insha Allah hadduu alla yiraahdo Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in cafis la soo dhafiyo hadalka khalad uu dhacay bini'aadanka bebe qof inuu khalad u arkay qofka openingkiisana in title xaq buu leeyahay qofka inuu wuxuu rabo ku hadlo hadal ma dabagaleeno waxaan rajaynaynaa wixii aad ka dambeeya wax ujeedadeena ay tahay inaan ayidno aan taageerno ra'iisul wasaaraha cusub shaqa adag baa u taala nin Soomaali madax waan labada ismu diinayso waa shaqa aad u dhib badan Somali community British Columbian dhowr sano ka shaqeeyay wixii u dhacaan baa ogaa marka nin Soomaali idil wada ilaahay buu leeyahay